kusoo dhawaada caawiya caalamka qodobada wararkeena ugu waaweynna waxa ay kala yihiin magaraha xorriyadda ee qaahire ayaa la xiray iyadoo ay banaanbaxyo dawladda looga soo horjeeda ka bilowdeen Masar warbixin dheeraad ayaanu idinkaga haynaa banaanbaxyada dalka Masar wararka kale caawana waxaa ka mid ah waa furunta hore ee dagaalka Liibiya waxaa laga baqayaa inuu halkaasi ka qarxo dagaal sokeeye oo ballaaran cabsi amni ayaa hareysay doorashooyinka Afghanistan iyadoo ay Taliban amreen in la xiro kumanyaal goobood oo ay codaynta ka dhacayso barnaamijka kaliya caawana waxaanu idinkugu haynaa diyaarado aanu duuliye saareen oo loo qaabeeyay inay dul heebaan wabiyada si ay xaasiyada u gartaan iyo qodobo kale kala soo BBC News Somali Television ka raadiyaha online iyo baraha bulshada halkani waa London caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal aniga maxamed cabdi xaraar oo idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe ammaanka ayaa aad loo adkeeyay caasimadda Masar ee Qaahira iyo magaalooyin kale iyadoo mudaharaadyo looga soo horjeeda dawladda laga baqayay inay halkaasi ka dhacaan mudaharadyada waxaa kiciyay mucaarad horay dawladda uga musaafirisay dalka in ka badan 1900 oo qof ayaa la xiray tan iyo markii mudaharadyadu ay qarxeen toddobaadkii hore wadooyinka gala fagaaraha xorriyadda ee Qaahira ayaa gabi ahaanba la xiray fagaaraha xorriyadda ee Tahrir Square ayaa noqday goob loogu dhigo ama lagu dhigo banaanbaxyada siyaasadeed ee caasimadda gaar ahaan waxaa si weyn loogu xasuustaa banaanbaxyadii horseeday kacdoonkii Masar ee 2011 iyo iscislaadii madaxweyne Xusni Mubaarak Maxamed Cali oo ah ganacsade dibad joog ah ayaa fure u ah abaabulka banaanbaxyada ee ugu dambeeyay muddo toddobaadyo ah socday 45 jirkan ayaa u xuubsibtay mid kamid ah dadka aadka u dhaliila madaxweynaha waa kuwan fariimihiisii ugu dambeeyay oo internet ka soo dhigay كل شبر في مصر يطلع يتحرر مصر oo dhan waa inay xorriyad u soo baxaan cidna lama taabanayo booliska ha ka baqina inay guriyiina soo galaan oo albaabada soo jabsadaan lana baxaan walaasha adiga aabbaha ama hooyada iyagoo qaylinaya jirdil dambe ma jiri doono kani waa kacdoonkii dadka waa in aan nafteenna xoreynaa banaanbaxyo dawladda lagu taageeraya ayaa sidoo kale dalka ka socda muuqaaladan aad arkaysaan waa maanta ayay nooga yimaadeen magaalada waqooyiga xigta ee Alexandria mudaharaadyo kuwan la mid ah ayaa laga abaabulay dhowr magaalo oo kale madaxweyne Cabdilfataax Al-Sisi oo dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka soo qayb galay shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee New York ayaa sheegay in malaayiin taageerayaashiisa ay wadooyinka u soo bixi doonaan tani waa waxa la sameeyay sidii hore oo kale beenta iyo bahdilka iyadoo qaar ka mid ah warbaahintu ay ka shaqaynayaan muuqaal aan dhab ahayn maalinta aan fariin u diro dadka reer Masar adduunka oo dhan way gaari doontaa waayo malaayiin ayaa jidka isu wax kale ma jiraan wagaag haddaba waxaa khadka magaalada Nairobi toos ugu jira Dr. Axmed Sheekh Maxamed Axmetiir oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Islaamka Dr. Axmed ku soo dhawow BBC Somali TV haddii aan su'aasha ugu horeyso ku weydiiyo maxaa saldhig u ah mudaharaadyaddan cusub ee Masar ka dilaacay mudaharaadyaddan waxay daba socdaan kacdoonkii 2011 ka dhacay Masar oo saddex halbeeg lahay xorriyad cadaalad iyo karaamo bini aadam 2 sano iyo bilooyin markuu jiray oo madaxweyne la doortay kadib bay ciidamada soo galeen ay inqilaab ku sameeyeen tani waa mawjadii labaad ee thawradaas ayadoo bariga kacday thawrooyinka sida la socotaanba madamaan ilaa dadkii thawrada kiciyay ee shacabka ay waxay ka dhiidhideen ee helaan maanta waxaad moodaa in ay shicaaraadkii ama halbeegyadii laftooda ay wadaan dadkii Masar oo ay leeyihiin xorriyad cadaalad iyo karaamada insaanka marka waa mawjadii labaad ee thawradaas thawrooyinkana dabeecadooda waxaa waaye ma dhintaane way yar degaan markay degaana dib u soo noolayaan ilaa ay ka gaaraan yoolka ay lahaayeen oo ah inay gaaraan
halbeegyadii ay qabsadeen markay bilaawmayeen marka meesha ayay ka socotaa ninkaa yar ayaa kiciyey oo ganacsadaha ah laakiin shuruudeeda ayaa diyaar iska ahayd sida ayay arrintaa u kacday waa gartay Dr. Axmed sida aan la soconno laba madaxweyne oo hore ayaa dalka Masar kacdoona lagu riday Sisi ma u muuqdaa in ay kacdoonkan u salfan doono horta dadka Masar hadda cabsidii way ka jabtay oo muddo 6 sano ah caburiskii ay ka cabsoonayeen ay soo bixi laayeen waxaa muuqata hadda jimcadii hore si cafawi oo lagu talagelin inay soo baxeen tanna ay soo baxeen iyaga oo in ka badan 2,000 hadda la xiray iyadoo Qaahiro la xiray stationadii ugu weynaay tareenada ee magaalada Qaahiro ee soo galay meydaan tahriir iyo magaalada gudaheeda marka shacab hadii cabsi ka jabto badiga wax celiyo ma jiraan oo celiska waa adag yahay markaas in ay ku qancaan xarig iyo dadka oo idinna lama xiri karo marka waxaan filaa towradan inay bilaabatay ay tahay waqti ay qaadataba inay Sisi madaxiisa ay tagi doonto ku khasbi doonto ama inuu jagada ka daga ama isaga uu wadanka ka cararo mar ay qaadataba hadda yar qabowdana way kici doontaa waayo shacabka xurriyad ma haysto maciishadii cirkaas ay ku sii shareeraysaa marka arrimihii towrada ay ku socon lahayd idil waa diyaarad muddo hadda waa gartay doctore laakiin banaanbaxyadan iminka waa laba dhinac dad baa jira taageersan Sisi oo isagu sidoo sheegay malaayiin qof weeyaan uu leeyahay marka soo laba banaanbax oo kala duwan iskuma dhacayaan oo ku hor kama duwanaado soo koobaya shaki male inuu nidaam kastaba dad maslaxa ku haysta ay jiraan oo difaacayo dadka maanta soo baxay oo Madiinada Nasr soo istaagay miisaanka meesha la yiraahdo waxay u badan yihiin dad dawladda u shaqeeya shirkadka dawladda u shaqeeya sidii warbaahinta caalamka ay sheegayeen waxa la ogaan doonaa miisaanka waxa la ogaan karaa dawladda markay dadka si xurriyad u sii deyso isagana loo banaanbaxo isagana lagu banaanbaxo labada koox oo banaanbixi midna aan jidadka laga xirin midna biyo iyo qabow aan loo qaybinin meel fiican aan loo qabanin marka kadib baa la ogaan doonaa Sisi taageerada u haysto laakiin cid haysa ma laha Sisi taageero ma haysto waayo waa dawlad aad u weyn oo maslaxa badan ay dad badan ugu xiran tahay Dr. Axmed Tiir aad iyo aad u mahadsantahay bal markan haddii aanu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa qofkii ka shifay adeemihii isu ragay in dood xilka xayuubisa lagu soo ogo Donald Trump ayaa noqday sarkaal CIA-da ka tirsan oo horey uga shaqeeyay aqalka cad sida ay warbaahinta Mareykanka sheegtay waxa madaxweyne Trump lagu eedeeyay inuu madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ku riixay in Paris uu ku sameeyo Joe Biden oo mid ka mid ah siyaasiyiinta ugu cadcad ee sanadka dambe madaxweyne Trump la tartami doona Britain, France iyo Jarmalka ayaa uga digay Iran in haddii ay qaado tallaabo dambe oo xadgudubka ah heshiiskii xadidaya barnaamijka nuclear-ka ay ka dhalan karto inuu gabi ahaanba burburo heshiiskaas isla markaana dib loogu noqdo ama ay dib ugu noqoto Iran cunaqabatayntii qaramada midoobay ee saarnayd Mareykanka ayaa sanadkii hore heshiiska ka baxay dhanka kale markab calanka Britain sita oo Stena Imperial lagu magacaabo ayaa ka dhaqaaqay Iran kadib 2 bilood oo halka lagu haystay ciidanka Iran ayaa gacanka ka qabtay iyadoo lagu eedeeyay in uu markab ku jabiyo shuruucda badaha Saudi Arabia ayaa markii ugu horeysay albaabada u furaysa dalxiisayaal ajnabi ah boqortooyada ayaa fiisooyin dalxiis u ogolaatay 49 wadan waxa ay fududeysay xeerka dharka ay xayiraadda saarneed ama ay xiranayaan haweenka soo booqanaya dalkaasi horaantii fiisooyinka Sacuudiga waxa inta badan ay ku xadidnaayeen gudashada xajka iyo umrada ganacsiga iyo shaqaalaha shisheeye talaabadan waxa ay qayb ka tahay qorshayaal lagu ballaarinayo dhaqaalaha dalka dagaalka ka holcaya Liibiya ayaa laga cabsi qabaa inuu sii ballaarto oo isu bedelo dagaal sokeeye oo weyn iyadoo ay dawladdu ay la harjadayso kooxaha mucaaradka ayaa haddana maleeshiyaad hubaysan ka faa'iideysanayaan amni darrada dalka ka jirta Aisha Afrax ayaa inoo faahfaahinaysa galbeedka magaalada Tripoli waa goob dagaal socdaalkan waxaa lagu wajahan yahay xudunta dagaaladii ugu dambeeyay ee dalkan oo ay gacan kula jiraan quwado shisheeye oo ay ka mid yihiin kuwa bariga dhexe madaxa ciidamada ayaa jooga furinta hore halkaasi oo ay askar badani u dhinteen difaaceeda isaga iyo ciidankiisu waxay ka tirsan yihiin dawladda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee Liibiya
waxaa taageera dalalka Turkiga iyo Qatar balse waxay la dagaalamayaan ciidamo kale oo ay taageeraan dalalka Masar, Imaaraat, Faransiiska iyo Ruushkaba. dagaalku wuxuu socday tan iyo bishii Abriil inkastoo aan aad looga hadlin. dhibaatada ka dhacda halkan waxay saameyn weyn ku leedahay meelo ka fog Tripoli, waxaana laga cabsi qabaa in dagaalkan uu sii daba dheeraado uuna isku beddelo mid sokeeye. dowladdu waxay sheegaysaa in laga xoog badan yahay oo aanay quwadahan iska wada dhicin karin. wasiirka arrimaha gudaha Liibiya wuxuu leeyahay iyadoo uu dagaalku ka holcayo Tripoli, kooxaha qaar sida IS ama Daesh ayay fursad u tahay. tani waa fursad aad ugu wanaagsan Al-Qaacida, Boko Haram iyo Daesh. hadda Liibiya waa laga geysan karaa dembiyo dagaal, wayna isticmaali doonaan fursaddan. way ku sii ballaaran karaan saxaaraha, wayna guuri karaan. mana iska celin kartaan miya maadaama aad difaacaysaan Tripoli? haa, waan isku dayaynaa inaan qaarkood soo qabanno. waxaanna isha ku haynaa aagga aan haysano oo keliya. waxaanna isla wada shaqaynaa ciidamada Maraykanka iyo Britain. waana sii wadi doonnaa, laakiin meelaha ka baxsan furimaha hore maxaan ka samayn karnaa? dowladdu xitaa ma difaacan karta madaarka Tripoli. marar badan ayaa lala beegsaday duqaymo cirka ah oo ay ugu dambeysay Khamiistii. muuqaalkan oo ahaa bishan horraanteedii waxaa laga arki karaa argagaxa dadkii safarka ahaa. hadda madaarku wuu xiran yahay, taasoo astaan u ah in magaalo madaxda weerar lagu hayo. weli waxaa inoo socdaad qaybtan barnaamijka ku daawan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee Click ee qadar yar oo nasashaha dabadeed ayaanu idiin soo dayni doonaa qodobadiisa iyo qodobo kale. weli waxaad daawanaysaan caawiya caalamka waaniga waa maxamed cabdi xaraare. bal aadin xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn. fagaraha xorriyadda ee Qaahira ayaa la xiray iyadoo ay banaanbaxyo dowladda looga soo horjeeda ay bilowdeen Masar. waa furinta hore ee dagaalka Liibiya, waxaa laga baqayaa in halkaasi uu ka qarxo dagaal sokeeye oo ballaaran. dadka ayaa goobaha codaynta u dhaqaaqaya Sabdiga si ay u doortaan ra'iisul wasaare cusub. ololaha waxaa hareeyay weeraro dhimasho leh iyadoo uu sheegay madaxweyne Trump in wada hadallada nabadda ee lala galaya Taliban ay joogsadeen. wariyaha BBC-da Martin Patience ayaa inoo soo diray warbixintan. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa inoo soo jeedinaya. caasimadda Afghanistan waxaa la isu diyaarinayaa codaynta, taasi oo hagaajin karta ama burburin karta dimuqraadiyadda jilicsan ee dalka. labada musharax ee ugu tunka weyn, Cabdalla iyo madaxweyne Ashraf Ghani, oo si aan xasiloonayn dowlad bahwadaag ugu ahaa, hadda doorashada ayay isaga soo horjeedaan. 5 sano ee ay xukunka joogeen waxa uu ahaa xilligii ay kordheen colaadda iyo saboolnimada. ciidamada ammaanka ee halkan waxay ku jiraan feejignaan. khatarta Taliban aad ayay u haraysay doorashadan. Narwaas iyo Axmed si xun ayay ugu dhaawacmeen dagaalka xagjiriinta. askartaas hore dowladda way ka aamin baxeen. ilaa 20 askari oo saaxiibaday ah ayaa dhimatay ama dhaawacantay. dowladda qoyskeena iyo annagaba nama taageerto. waxaana doonaynaa inay u codeeyaan dowlad tan ka duwan. dhaawacaga ma na tusin kartaa? Axmed dhowr jeer ayaa la toogtay. 19 qalin ayuu galay. sanad iyo barna isbitaal ayuu ku jiray. ilaa uu dagaalku dhammaado, Afghanistan mustaqbal ma leh. waqti ayay qaadanaysaa. 18 sano dagaal ah kadib iyo 3 madaxweyne uma eka inay nabaddu soo dhowdahay. doorashooyinkii hore ee Afghanistan waxaa qarribay musuqmaasuq weyn. dowladda halkan waxay doonaysaa in ay codaynta u adeegsato taageerada sharci ahaanshaheeda, balse sharciyad caynkee ah ayay doorashada lahaanaysaa marka ay qaybo badan oo dalka ah ay Taliban xukunto. dad badan inay codeeyaan ayayba ka baqayaan. waddo kasta oo halkan cabsi ayaa ka jirta
tani waxay ka mid tahay kuwo badan oo ilaalo hubaysan ay taagan yihiin iyaga oo kor kala socda kollejkan ku yaal kaabuul hadda waa la adkeeyey ammaanka kadib markii ay xagjirinta bam ku qarxiyeen sannadkii hore iyagoo dilay 18 arday balse maanta waa uu buuxaa kuwo badan ayaa markii ugu horraysay halkan ka codaynaya waad codaynaysaa marka ma filaysaa inay wax isbeddelayaan hoosta ayaan ka warwarsannahay waxaan ka walaacsannahay wadahadallada nabadda wadaxaajoedyada xaggee dalka ku socda jihadee isbeddel loo samayn doonaa marka maraykanku baxo maxaa dhici doona tani waa su'aal weyn ilaa goortee doorashadan ma codaynaysaa maxaadan u codaynayn doorashada sababtoo ah iyagoo dhan waan necbahay wax badan oo xun ayaa jira haddii aan hadda ka hadlo waan oynayaa afghanistaan badan ayaa dalkooda quus ka jooga dagaal ayay ku jiraan nabad ma haystaan umana dhowa in ay helayaan doorasho xor ah oo nadiif ah waagaag raalli ahaada afghanistan waxaa la dooranayo waa madaxweyne halka aan ka eer ra'iisul wasaare 30 sano ee ugu dambeeyay kaydka adduunka ee hubka nuclearka ayaa aad isu dhimay 80%, laakiin iyadoo ay jiraan heshiisyo muhiim ah oo ku aadan daahfurka iyo horumarinta tiknoolajiyad hub cusub oo nuclear ah in la tirtiro hubka nuclearka ma tahay wax la gaari karo. heshiiska Mareykanka iyo Ruushka u dhaxeeya ee 2010 la saxiixay ayaa dhacaya 2021. Mawlid Xaaji Cabdi ayaa eegaya qodobada ugu waaweyn. muddo sanooyin ah oo la isku dayay dhimista hubka nuclearka dunidu waxay galaysaa waqti hubanti aanay jirin balan eegno afar arrin oo inoo sahlaya fahamka sida ay wax u socdaan. waxaa jira 5 dal oo loo aqoonsan yahay hubka nuclearka waxayna kala yihiin Mareykanka, Ruushka, Shiinaha, UK iyo Faransiiska. waxaa kale oo jira 4 wadan oo leh awoodda hubka nuclearka: Hindiya, Pakistan, Kuuriyada Waqooyi iyo Israa'iil. inkastoo taasi aan la xaqiijin ama la beenin 14,000 taasi waa tirada hubka nuclearka ee ay wadamadani la aaminsan yahay inay haystaan. badi waxaa haysta Mareykanka iyo Ruushka. waa tiro 6,000 midkoodba. ku dhawaad 18,000 ayaa si fudud loo ambaqaadi karaa, laakiin tirooyinka dhabta ah ayaan si adag loogu daboolayaa sirta qaranka. 80% ayaa la dhimay. taasi waxaa la gaaray marka la barbar dhigo intii lagu jiray hubdhigista tan iyo 1980. UK ayaa sidoo kale dhimaysa soo saarista nuclearkeeda, laakiin Hindiya, Pakistan iyo Shiinaha ayaa la rumaysan yahay inay kordhiyeen kooda. qarash aad u xooggan ayaa lagu bixiyay in la sii wado lana casriyeeyo hubka. waxaa sidoo kale jira hal heshiis oo caalami ah oo ku aadan hubka dhigista, waxaa loogu yeeraa heshiiska xakamaynta nuclearka ama NPT. saxiixayaashu waxay qalinka ku duugeen dhimista gaashaandhigooda nuclearka, laakiin hub dhimis ma noqon doonto waqti dhow. sidoo kale waxaa jira mucaahadooyin kale oo hubka nuclearka ah. kan ugu muhiimsan waa bilowga heshiiska cusub ee Mareykanka iyo Ruushka oo la saxiixay 2010. waa heshiiska kaliya ee lagu yaraynayo hubkooda nuclearka. Hindiya, Pakistan, Kuuriyada Waqooyi iyo Israa'iil ayaan iyagu saxiixin heshiis kasta oo lagu ilaalinayo hubka nuclearka. horumar laga gaaro dunida oo hub nuclear la'aan ah ayaa u muuqda inay ka dhaqaaqday meel la tiigsan karo. waagaag bal iminkan haddii aanu eegno wararka ciyaaraha ee caawa. toddobaadkan horyaalka Ingiriiska kooxda hoggaanka haysa ee Liverpool ayaa rajaynaysa inay sii wadato in aan laga badin. waxay la ciyaaraysaa Sheffield United. Manchester City oo horyaalka difaacanaysa ayaa qaabili doonta Everton. kooxda ugu hooseysa kaalimaha horyaalka ayaa baadi goobaysa inay ka soo kabato jugtii 8 gool ee Man City looga dhaliyo waa Watford. waxa ay toddobaadkan la hargajadaysay ama ay ka hortagaysaa Wolves.
maxkamad ku taal Spain ayaa dib u dhigtay dhageysiga dacwad ay ku lug leeyihiin weeraryahanka reer Brazil ee Neymar iyo kooxdiisii hore ee Barcelona. Muranka ayaa bilowday kadib markii Neymar uu u wareegay kooxda PSG sanadkii 2017 kadib hal sano oo kaliya uu la joogay Barcelona ayuu ku soo gaabiyay qandaraaskiisii 4 sano ah. Barcelona ayaa la tiigsatay dacwad ku aadan in uu ku xadgudbay heshiiska kaasoo 28 milyan oo dollar ku cusboonaysiintiisa qandaraaska uu hadda ku jiro. koobka horyaalada ciyaaraha fudud ayaa ka bilaabmaya magaalada Doha waana markii ugu horeysay ee lagu qabto bariga dhexe. Diyaar garowga ciyaaraha ayaa waxaa ka jiray walaac laga qabay kuleelka iyo cimilada magaalada lagu qabanayo ciyaaraha iyadoo si weyn aan loo iibsan tigidhada. Tartanka orodka haweenka ayaa caawa dhacaya si looga weecdo kuleelka daran ee caasimadda Qatar. toddobaadkan iyo tiknoolajiyadda waxaanu idinkugu haynaa robotyo xajmigooda badbedelaya iyo drones ama diyaaradaha aanay duuliyuhu saarayn oo xayawaanada xamaalatada ah kor ka arkaya. Axmed Xaaji Xasan ayaa inoo haya. bal aan aragno robot sida eyga loo sameeyey oo fuulaya meelaha dallacadaha ah. shay ayuu soo qabsanayaa wuuna furfurayaa. haddaba waxaad kaga kiraysan kartaa qiimo ka yar kan gaariga shirkadda robodyada ee Boston Dynamics. robotkan waxaa loo bixiyey Spot. ma ahan sida xayawaanka guriga jooga balse waxa uu faa'iido u leeyahay dhismaha iyo warshadaha. weli ma u baahan tahay in guriga aad ku haysato xidig Hollywoodka ka tirsan. hagaag hadda taasi si degdeg ah ay u dhawoobi doontaa iyadoo shirkadda Amazon ay ku dhawaaqday in caawiyaha Alexa uu mar dhow samayn doono codka jilaaga caanka ah Samuel Jackson iyo kuwa kale ee ayaguna la midka ah. qaar ka mid ah robotyadan yaryar waxaa loo adeegsan karaa fududaynta hawl maalmeedka guriga. waxa ay ka kooban yihiin robotyo badan oo yaryar oo qaabkooda uu isbeddelayo lagana maamuli karo kombiyuutar. iyadoo la adeegsanayo kaamirooyin wax dabagala waxa ay sidoo kale nadiifin karaan miiskaaga. droniska casriga ah ee loo garanayo Croc Spotters oo ah meeleeyayaasha yaxaaska ayaa la filayaa in yaxaaska Australia meelaha uu ku badan yahay lagu nabadeeyo. diyaaradahan oo dhowaan la tijaabiyey waxaa lagu shubay barnaamij ay ku aqoonsan karaan noocyada yaxaaska webiyada iyo kuwa badda. 93% waxayna ka saxan yihiin isha aadanaha oo 16% ah. droniskan waxay gacan ka geysanayaan ilaalinta noolahan iyo howlaha gurmadka. wahagaag ugu dambeyntiina bal aanu eegno sheekadan aan idinku dhaafayo. guri guuraya wax aan caadi ahayn ayuu leeyahay dad badan haddii aadan ahayn mulkiilaha gurigan qaabka Georgia loo sameeyo leh. halkan waa guri caadi ah balse mulkiilaha oo kaliya ma ahan waxa guuraya. gurigan loo yaqaano Galloway House ee taariikhiga ah ayaa jira 260 sano. waxaa loo qaaday safar 70 kilomitir ah oo ka gudbaya webiga gobolka Maryland. mulkiilaha ayaa bixiyay $1 milyan si guriga looga dhiso deegaan cusub oo ku yaala Queenstown. xusuusnow wararkii ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali. intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka caawa iyo caalamka. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. intaanu mar kale dib u kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo. jimco wanaagsan.